magacaygu Cabdullaahi Maxamed Cabdi waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada Burco sidoo kale waxaan ka tirsanaa shaqaalaha wakaaladda biyaha Burco oo waxa weeyaan xaq darro laga saaray ama shaqo joojin laga sameeyay waxaan doonayaa maanta inaan halkan kaga hadlo shaqo ka joojin uu igu sameeyay maareeyaha wakaaladda biyaha Burco Sakariye Lamumbe shaqo ka saaristaas oo runtii ahayd cadaalad darro aan geed lagu soo gaban wuxuu shaqadayga saaray sawir uu tusay sawirkaas oo yiri waxaad ka qayb gashay xaflad uu lahaa xisbiga wadani runtii waxa laale iyo wuxuu cuskaday iyo xeer uu cuskaday toona ma jiraan wuxuu igu yiri sawirkaas adiga ma shaqadii sidaas laga joojiyay sidii waxa weeyaan shaqadiga eriyay warqadiina shaqo ka saaristana way diideen inuu siiyo oo warqadii layma siin runtii arrinka waxaan u arkaa arrin cadaalad darro ah oo aan qurux badnayn sidaynu ka warqabno waddanka oo dhan bay cadaalad darradu ka jirtaa muddooyinka u dambeeyay ama 7 sano ee xukuumadda nimanka joogta ay talinaysay oo runtii aniga wax qariib ah ilama aha balse waxa fiican in waxa weeyaan bulshada loo soo bandhigo cadaalad darrooyinka isbarkan ee waddanka ka jira haddii aan waxa weeyaan ka hadlo xaaladda wakaaladda biyaha Burco runtii wakaaladda biyaha Burco waxa weeyaan waa meel musuqmaasuqa oo waxa weeyaan shaqaalaha iyo macaamiisha lagu dhibaateeyo oo ay ku dhibaateeyaan madaxda sare ee wakaaladdu Sakariye muddo 3 sano ku dhow joogay muddada uu joogay musuqmaasuq fara badan buu ka geystay hanti badan buu ka lunsaday sidoo kale wuxuu macaamiishii ku dalacay lacagtii biyaha oo halka mitir kubik oo markii hore ugu yimi 12,000 shilin iminka wuxuu ka dhigay 12,000 shilin iminkana waxa sidoo kale u qorshaysan inuu sii kordhiyo ka dhigo 13,000 shilin saynu ka warqabno Burco waa meesha ugu biyaha badan waa meesha waxa weeyaan haddii dhowr mitir la qodo waa meesha biyuhu ka soo burqanayaan oo runtii maaha meel waxa weeyaan magaalooyinka kale iyo gobolada kale la mid ah sidoo kale waa meel ciideed aad u jilicsan tahay oo maaha meel waxa weeyaan biyo yarooda sidoo kale masaafo dheer laga soo jiiday magaalada gudaheeda ayay inta ugu badan ee riigaahay ay ku yaalin meesha noocaas ee waxa weeyaan biyaha iyo nimcada Ilaahay u dhigay haddana waxa weeye waxay noqotay meel waxa weeye laga ganacsado oo dadka madaxda ee wakaaladdu ay ka ganacsadaan oo dadka ku dhibaateeyaan lacag saayida oo waxa weeyaan aan qaadi karayn ay ka qaadaan gobolka waxa weeye wax dhaqaalaha ma leh dhaqaalihiisu aad buu hooseeya dadku waxa weeyaan dad dan yar ah oo waxa weeye colaadaha bariguna aad u saameeyeen maanta waxa ahayd in loo naxariisto balse maaha waxa weeyaan in iyaga lagu dhibaateeyo lacagta lagu kordhiyo dhibaatooyin badan baa ka jira wakaaladda biyaha Burco oo waxa weeyaan musuqmaasuq leh oo leh maamul xumo Sakariye waxa hore looga joojiyay shaqada ama looga eriyay musuqmaasuq uu sameeyay iyo lacag uu lunsaday runtii aad baan uga xumay waxa weeye in qof waxa weeye noocaas loo dhiibo wakaaladda aniga maanta waa sharaf in waxa weeyaan sawir laga eriyay shaqada laga saaray oo leeyay sawirka waxa weeyaan xisbigaas ka qayb gashay oo iyadoo wax digniin laysiin oo qoraal ah oo waxa weeye wax ganaaxaan ay ugu dhicin maanta in laga saaray oo corruption laga saarin ama shaqo xumo laga saarin waa sharaf weligii waxa weeye muddadii 2 sano baan joogay wakaaladda biyaha Burco muddadaan joogay wali waxa weeye ganaaxay uma dhicin ama shaqo ka fadhiisina ama waxa weeyaan digniin layma siin runtii waxa weeye shaqadayda si fiican u gudanayay bulshadeeda iyo dadkayga u tuurayay oo la dadaalayay waxa ugu badan ee waxa weeyaan isku qabsan jiray waa dadka sideebad waxa weeyaan maxaad u dhibaateen weyday oo lacagta uga soo ururin weyday oo biyaha uga soo jari weyday waa ka warqabtaan waxa weeye dadkeena wadada iska duruufaysan waa dad waxa weeyaan xaaladaysan maanta ma qaadi karaan waxa weeye culays badan waan u turaa waan u naxariistaa marka waxaan u sheegayaa maareeyaha wakaaladda biyaha Burco bal waxaan su'aashan weydiinaya waxay tahay maareey adiguna shirkii waxa weeye 19 August 2023 ka dhacay magaalada Burco gaar ahaan hotelka Mansoor wadigii dhex fadhiyay bal anigana waxa weeyaan sababta xaaraanta ka dhigtay taadana xalaalaysay anna xaaraanta ka dhigtayna waxa weeyaan ka qayb galo shir wadani leeyahay ayaan ka doonaynaa maanta halkan cabaatiniga ma waraysigani oo ma cabanayo oo mali shaqadii waa ligeeyay balse waxaan doonayaa xaaladda waxa weeyaan dhabta ee waddankeena iyo wakaaladdu ay ku sugan tahay inaan ummadda u soo bandhigo maanta kaliya waxa weeyaan waxaan cadaalad ka doonaynaa ee aan la hadlayaa waxa weeye komishanka doorashooyinka qaranka waxaan leeyahay war xil weyn baydin saaran war mas'uuliyad weyn baydin saaran war maanta waxa weeyaan xaaladda waddanku marayo ka warqabtaan Soomaaliland maanta xuduudkeedu waxa weeye waa og halka uu marayay intii horena waa ogeydeen waxaan idin sheegayaa waan idin kula dardaarmayaa war xaalad ma qaadi karayo dalkeenu doorasho qabta oo doorasho cadaalad oo xaq ah oo waxa weeyaan danayaasha xisbiyada qaranku ay ku midaysan yihiin iyo ururadu qabta taasa waxa weeyaan lagu kala badbaadaya taasa waddankeenu inagu dhismayo oo inagu hagaagaya haddii kale
waxa weeyaan xaalad adag oo ayna waxa weeyaan ka soo kabanayn ayuu waddanku geli doonaa.